السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالقة كسر وهذا جنرال قالي ميديا ما أنتو حنجعلنا هنا كهذا بيش بركة شعبان سيدا أكته النبي عليه الصلاة والسلام وحبدين جري صلاة soonka iyo sidoo kale sadaqada maxaa yeelay bishan waa bil aad iyo aad u qeyr badan sidaad ogtihiin sidoo kale waxay isku waafaqeen saxaabada ama gaar ahaan Anas ibn Malik wuxuu yiraahdaa bisha Shacbaan inta ugu dambayso habeenkeeda ducada in la badiyo Allah subhanahu wa ta'ala wuu aqbalaa bishan Shacbaan sida aad ogtihiin waxyaabo muhiim ah ayaa dhacay sida qiblada in laga soo wareejiyo Baytul Maqdis ee loo soo wareejiyo dhanka Kacbada xataa alayhi salatu wasalaam oo aad u jeclaa mar walbana alla dhankiisa samada uu gacmaha ugu taagi jiray in qiblada la soo wareejiyo Allah subhanahu wa ta'ala uu markaa quraankiisa uu wariba gaar ahaan suuratul baqara a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim nara taqalluba wajhika fis samaa falnuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun sharaxaada aayadda macnaheeda waxay tilmaamaysaa in nabiga uu aad u jeclaa in qiblada loo soo wareejiyo dhanka Makka ee laga soo wareejiyo Baytul Maqdis maadaama ay ku faquuqayeen ee ku dhaleeceynayeen nimankan yahuuda ah iyo nasaarada hadii diintaada tahay diinta ugu dambeysay ee sharaa'icda ee islaamka ee wax toosinayso qibladu wali halkii ahaan jirtay bay tahay maxaa u soo wareejin weeda ama maxaa qibladaada meel kale ee u noqon weeday teeda soo ka duuday halka ayuu wuxuu jeclaa qiblada in asalkeeda hor lagu soo celiyo oo ahayd Kacbada halka ay dhisay nabi ilaahi Ibrahim iyo wiilkiisa Ismaaciil inta kadib nabiga Alayhi salaatu mar asagoo u jawaabay saxaabada Usama ibn Zayd oo lahaa kuma arkin bishan Shacbaan bil ka badan soonkeeda aad soomayso ayuu wuxuu yiraahday bishan dadka oo dhan qaafil ay ka yihiin waxaana u dhaxaysaa Rajab iyo Shacbaan ay u dhaxaysaa waxa doonaya in ay acmaasheeda Allah subhanahu wa ta'ala uu rafciyo aniga oo sooman sida awgeeda nabiga Alayhi salaatu wasalaam mar walba wuxuu ku dadaali jiray in uu soonka badiyo oo soomo oo quraanka akhriyo oo dhikri الله oo gacanta ku hay sadaqadan baxsado walaalahayga qaaliga ah maadaama bishii barkeesneed oo sida uu caneed aan ku jirno aynu ka faa'iideysano quraanka inaynu aqrino sidoo kalena soonka aynu badano sidoo kalena aan sadaqada baxsano sida intaan ku wada kulmayno maqal dambe waxaan leeyahay nabadgelyo